waxaa maanta sharaf ii ah inaan hortiina imaado anigoo raba inaan idiin soo bandhigo nuxurka ku jira sharciga idin hor yaalla ee ah sharciga dib u eegistii batroolka ee 2008 haddii aan ku bilaabo taariikhda shidaal qodista Soomaaliya waxaa sahankii shidaal baarista lagu bilaabay ka hor xurnimadeennii 1960 ilaa 60 inta dhexeysa lagu bilaabay waxaa bilowday shirkad weyn oo Mareykan ah oo loo yaqaan Sinclair waxay sahan ku samaysay dhulka Soomaaliyeed dhamaantiis inta badan dhulka badda maaha laga soo bilaabo waqooyiga Soomaaliya ilaa koonfurta Soomaaliya baaritaanka ay samaysay kadib waxaa loo qaybshay xirmooyin ama bloogyo aagag 8 aagaa loo qaybshay 8 aag magacyadooda waxaa la kala yiraahdaa guban ama bixin duule oo ah waqooyiga Soomaaliya Daroor Basin Nugaal Basin Mudug Basin Hiiraan Basin Banaadir Coastal Basin Jubba Basin iyo Luuq Mandera Basin intaasoo qaybooda loo qaybshay baaritaanka Soomaaliya lagu sameeyay wixii dawladda markay samaysantay Soomaaliya dawladda markay dhad Soomaaliya waxaa la galay heshiisyo ay shirkadihii dawladda Soomaaliya la gashay loo yaqaano magaca concession waa heshiis jiray oo la gali jiray shirkadihii shidaalka oo ah shirkad in aag cayiman la siiyo ayada ay yeelato waxa ka soo baxa ayada ay leedahay dawladdan ay ku leedahay markaas wax loo yaqaan royalty iyo canshuur ay ka qaadayso laakiin aaga waxa ka soo baxo dhan shirkadda iskale shirkadihii markaas waxaa loo qaybiyay 25 xirmood 25 kaas blog waxaa kala qaatay shirkadihii waaweynaa oo loo yaqiinay magacyadooda qaar kamid ah Chevron Amoco BP Ajib oo hadda loo yaqaan Eni Conoco Phillips Shell Exxon iyo shirkado kale oo waaweyn dhammaan shirkadahaas waxay wadanka ka baxeen markii dagaalkii sokeeye wadanka ka dhacay 1991 bilowgiisii shirkad kasta waxay ku baxday waxa loo yaqaan force majeure oo ay wadanka uga baxday aagagoodina ku cidlaysay waxaa tijaabo ahaan loo qoday 75 ceel oo laga qoday wadanka qaybihiisa kala duwan oo dhan 68 ceel 67 ceel waa bariga 8 ceelna waxaa laga qoday badda aan moolka ahayn jiinka macnaha xeebta ayaa laga qoday tijaabooyinkii la qaaday waxaa lagu helay raad shidaal ganacsi gali kara waxaa lagu helay raad gaas ganacsi gali kara waxaa lagu helay raad shidaal iyo gaas isku jira waxaa kaloo lagu helay ceelal qalalna waa loo tagay meelo qalalna waa loo tagay 75 ceel intaas kadib burburkii dawladda kadib dawladdii federaalka ee Soomaaliya markay asaasantay 2012 waxay bilowday maadaama sahankii dhulka uu la soo dhameystiray amni ahaan aan laga howlgali karin in sahan lagu sameeyo badda Soomaaliya waxay howlgelisay 2 shirkadood oo kala duwan 2013 ilaa 2015 aagaga ay baareen waa inta laga soo bilaabo Kismaayo ama Jubbaland ilaa iyo Galmudug obyo waa badda Soomaaliya 2 shirkadood isaga daba noqotay macluumaadkii laga helayna wuxuu muujinayaa in badda Soomaaliya uu ku jiro raad shidaal oo way badan oo gali kara ganacsi maadaama Soomaaliya qaybo badan ay u dhiman yihiin in baaritaan lagu sameeyo badda Soomaaliya wasaaradda batroolka iyo macdanta Soomaaliya waxay wadaa hadda dadaallo ay ku dhameystirayso sahanka badda ee dhiman badda Soomaaliya sida Puntland iyo Somaliland isla markaasna waxaan raadinaynaa shirkado kale oo si casriyeysan noogu baara hadda macluumaadka laga haayo hadda waxa laga hayaa wax loo yaqaan seismic lagu sameeyay 2D waxaan sameyn doonaa insha Allah 3D kaasoo xadidi doona xadiga shidaal ee ku jira iyo meelaha saxda ah oo laga baari karo marka dib ugu soo noqdo sharcigan hadda aan hortiina yaala sharcigu wuxuu soo maray 3 heer oo kala duwan
xilligii kacaanka waxaa la sameeyey sharci loo yaqaano sharciga macdanta Soomaaliya ama loo yaqaano Mining Code 1984 macdanta marka la leeyahay waxaa isugu jiray macdanta Soomaaliya qaybaheeda kala duwan sharciga lagu maamuli lahaa oo uu ka mid yahay batroolka Soomaaliya madaxweynihii xilligaas Allah u naxariistay Janaal Maxamed Siyaad Barre ayaa saxiixay 9 Janaayo 1984 sharcigii Mining Code-kii ilaa lagu dhaqmi jiray Soomaaliya xilligaas la sameeyay kadib muhiimadda batroolka Soomaaliya uu leeyahay darteed ayaa dawladdii ku meel gaarka ahayd xilligii Allah u naxariistay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf waxay dib u eegis ku sameysay cutubka batroolka ee ku jiray sharcigii macdanta waxaa la saxiixay heshiis barlamaankii toddobaad bishii Agost 7 2008 waxaa Soomaaliya ay yeelatay sharci batrool oo loo yaqiinay sharciga batroolka 2008 waxaana saxiixay madaxweyne Cabdullaahi Yuusuf Axmed Allah u naxariisto maadaama waddanka uu qaatay nidaam federaali ah oo waddanka uu u samaysan yahay dowlad goboleedyo waxaa lagu qasbanaaday in sharcigii dib u eegis lagu sameeyo iyadoo lagu saleynayo nidaamka federaaliga ee ay dowladda qaadatay maanta dowladda federaalka ee Soomaaliya waxay marka dib u eegis ku sameysay sharciga maanta hortiina yaala waxaana consultation ama wadatashi lala sameeyay dowlad goboleedyadii waxaa wadatashi lagala sameeyay civil society ama bulshada rayidka waxaa la sameeyay public hearing intaba kadib baarlamaankii Soomaaliya aqalkiisa shacabka wuxuu ansixiyay sharciga batroolka sanadkan bishii May 20keedii haddana hortiina yaala si aad waajibaadkiina ugu gudataan oo aad idinkan u ansixisaan insha Allah taala sharciga meelaha ugu muhiimsan uu taabanayo waxaa kamid ah sharcigu wuxuu ku saleysan yahay heshiiskii ay wada gaareen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo madaxda dowlad goboleedyada wada hadal dheer oo la sameeyay waxaa baydhabo lagu saxiixay heshiiskii lahaanshaha maamulka iyo wadaagga khayraadka macdanta iyo batroolka Soomaaliya bishii Juun 5 2018 sharcigaas wuxuu heshiiskaas wuxuu meesha ka saaray Soomaaliya kuma heshiin karto khayraadkeeda Soomaaliya waxaa saxiixay madaxweynayaashii dowlad goboleedyadii oo ay goobjoog ka ahaayeen madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya isla markaasna uu saxiixa qayb ka ahaa ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya heshiiskana wuxuu ku lifaaqan yahay sharciga batroolka waxaa kaloo heshiiska qayb ka ahaa gudoomiyihii gobolka Banaadir markaas xilligaas Allah u naxariistay injineer Yarisow heshiiskaas wuxuu saldhig u yahay dib u eegis lagu sameeyay sharciga batroolka 2008 waxa heshiiskaas isla gartay in lagu dhisay hay'ado maamuli doona shidaalka Soomaaliya waxaa lagu dhisay hay'adda golaha sare ee khayraadka dalka golaha sare ee khayraadka dalka oo aad ku arki doontaan sharciga wuxuu ka kooban yahay madaxweyne dowlad goboleedyada iyo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxaa loogu talagalay hay'addaas sare inay go'aanka ugu dambeeyo oo Soomaaliya ay gaarto khayraadkeeda lagu soo saari doono isla markaasna lagu xalliyo haddii khilaaf soo baxo golaha sare sharciga 2008 kuma uusan jirin laakiin maadaama nidaam federaali aan qaadanay golaha sare ee khayraadka dalka hadda sharciga waa lagu soo daray waxaa kaloo sida cad ku jira wasaaradda batroolka doorkeedii iyo macdanta oo ah inay siyaasadii batroolka Soomaaliya ka shaqeyso iyo macdanta Soomaaliya ka shaqeyso isla markaasna ay go'aanka ugu dambeeyo oo ah heshiisyada inay ayada gaarto waxaa la dhisi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo hay'adda batroolka Soomaaliyeed oo ah hay'ad nidaam dejineed oo maamuli doonta heshiisyada lala gali doono shirkadaha caalamiga ee shidaalka maalgashan doona hay'addaas waa hay'adda ugu muhiimsan oo ka shaqeyn doonta bixinta heshiisyada sahanka shidaalka haddii shirkad sahan ay rabto Soomaaliya in ka samayso hay'adda bixin doonta waa hay'adda batroolka Soomaaliyeed diyaarinta iyo wada xaajoodka heshiiska wax soo saar wadaaga oo lala galayo shirkadaha caalamiga haddii aan rabno inaan contract la galno shirkadaha caalamiga hay'addaas soo diyaarinayso oo wada xaajood la galayso shirkadaha caalamiga kormeerka
iyo howlgallada batroolka inta ay socdaan haddii heshiiska uu dhaco waxaa loo baahan yahay in shirkaddii lala socdo wixii qaldama waxay xaal meeshuu marayo hay-addaa mas-uulka ah inay daba socoto ilaalinta bii'adda caafimaadka iyo badqabka shaqaalaha intaba ayadaa mas-uulka ah hay-addaas marka howlahaas intaas culus ayaa loo igman doonaa insha allah waxaa kaloo la dhisi doonaa shirkadda batroolka qaranka soomaaliyeed oo noqon doonta shirkadda ugu muhiimsan ee waddanka yeelan doona insha allah sida mustaqbalka shirkaddaas waxay saami ka yeelan doontaa dhammaan howlgallada batroolka ee soomaaliya laga qodi doono shirkaddaas waxay hadday awood u yeelato qaadan doontaa xirmooyin ama baloogyo ay kula heshiin karto shirkado caalami ah shirkaddaas waxaa saami ku yeelan doona oo kale shirkado ay samaysan doonaan dowlad goboleedyada oo loo yaqaano shirkadaha shidaalka ee dowlad goboleedyada oo maamuli doona waxaa loo yaqaano downstream ama maamulka shidaalka ee gudaha oo aan ahayn dibadda kaalmaha shidaalka kaydadka shidaalka sifayn haddii la sameynayo warshado sifayn haddii la sameynayo gobollada laga sameeyo shirkadahooda maamulaya laakiin shirkadahaas ay samaysan doonaan gobollada waxay saami ku yeelan doonaan shirkadda weyn ee qaranka batroolka soomaaliyeed shirkaddaas waxaa la mahmaahayaa ama la saadaalinayaa inay la mid noqoto shirkadaha caalamiga sida aramco sida petronas oo ay leeyihiin shirkadaha wadamada waaweyn oo shirkadaha caalamiga insha allahu tacaala waxaa mudanayaal gudoomiye mudanayaal iyo marwooyin waxaa sharciga ku cad heshiiska lala gali doono shirkadaha caalamiga oo loo yaqaano heshiiska wax soo saar wadaagga heshiiskaas wax soo saar wadaagga wuxuu bedeli doonaa heshiiska haddaan aan sheegno oo ah concession wuxuu ahaa shirkadda in aag cayiman la siiyo ayada ay yeelato wax ka soo baxo dowladdana ay ka qaadato oo keliya royalty iyo canshuur laakiin hadda wax soo saar wadaagga micnaheedu waxa waaye aaggii dowladda iska leh shirkaddii way ka shaqaynaysaa oo keliya shirkaddii waxay qaadan doontaa wixii soo baxa faa'iiday ka qaadanay waxaa laga qaadi doonaa canshuur waxay hesho royaltyna waa laga qaadi doonaa marka waa heshiis caalami ah oo hadda adduunka laga isticmaalo oo loo yaqaano production sharing agreement wuuna ku cadin heshiiskan wuxuu lahaanshaha siinayaa dowladda soomaaliyeed halka la wadaagi doono wixii soo baxo canshuur iyo royaltyna laga qaadi doono insha allah heshiiskan wuxuu ku xiran yahay gorgortan laga gali doono xaddiga batroolka ee laga helo aagaas iyo marba sicirka shidaalka adduunka meeshuu ka maray marka waa heshiis maalin kasta la cusboonaysiin karo sharcigan wuxuu xoogga saari doonaa ilaalinta bii'ada waad ogtihiin waad qiyaasi kartiin howlgal shidaal wuxuu dhibaato ku keeni karaa deegaanka markaas laga shaqeynaya ama bad ha noqdo ama beri ha noqdo marka wuxuu ilaalin doonaa ilaalinta bii'ada iyadoo baaritaan lagu sameynayo aagga laga shaqaynayo ka hor inta aan shaqada laga bilaabin inta howsha ay socoto iyo markii ay howsha dhammaatoba si shirkadda xisaabtan rasmi ah loola galo waxaa la ilaalinayaa beeraha webiyada badaha xoolaha deegaanka ogaarta dadka iyo wixii lamid ah intaasba hay-adda mas-uulka ah hay-adda batroolka soomaaliyeed heshiisku wuxuu kale xoogga saarayaa daahfurnaanta howlgallada batroolka waa laga yaabaa in ay shaki keenaan oo ku saabsan yaa xoolahan maamulayo yaa qaadayo yaa see loo isticmaali doonaa waxay sharciga ku cad in awood ay leeyihiin hanti dhowrka inuu mar kasta isha ku hayn karo howlgalladan batroolka ee ka bilaaban doona soomaaliya wuxuu kaloo heshiiska xoogga saari doonaa adeegyada deegaanka oo ah local content shirkad markay aag timaado aaggaas dadaa jooga dadkaas waxay u baahan yihin horumarin dhinaca waxbarashada dhinaca caafimaadka dhinaca bulshada wadooyinka shirkadda waxay ku qasban tahay inay horumarin samayso oo ay ka samayso aaggaas ay degayso marka heshiiskan way ku caddaa heshiiska wuxuu kaloo xoogga saarayaa inuu ilaaliyo xirfadleyda iyo ganacsatada soomaaliyeed haddii xirfad ama ganacsi ama howl dad soomaaliyeed ay qaban karaan shirkaddaas inaysan dibadda ka keeni karin oo ay soomaalida isticmaalayso muxuu ahaa waxa aan haysano intaasoo qodob ayaa rajeynaya inuu xoogga saari doono sharcigan sharciga wuxuu tixgelinayaa marka sida ku cad sharcigeenna wuxuu tixgelinayaa dhammaan heshiisyadii dowladihii soomaaliyeed la aqoonsanaa ay la galeen shirkadihii caalamiga
shirkad caalami ahoo heshiis haysata haddii ay dib u soo noqonayso ayadoo diyaar u ah inay nagala heshiiso nidaamkan cusub oo wax soo saar wadaagga waxaan anagan diyaar u nahay inaan tixgelinno aaggeedii inay ku soo noqoto ay maalgashato ilaa iyo hadda shirkadihii beriga ka shaqaynayay dowladda soomaaliya waxay u qortay waraaqado ay leedahay ciddii diyaara inay soo noqoto annagana diyaaraan u nahay waxaa ka soo jawaabay dhowr oo yidhaahdeen maadaama duruufaha ka jira beriga soomaaliya aan ognahay waxay yidhahdeen aagagaas waan fasaxnay marka aagaga ay fasaxeen waa diyaar badda soomaaliyana waxaa ku jiray shirkadaha loo yaqaano exxon iyo shell wayna ogolaadeen inay dib u soo noqdaan waxayna diyaar u yihiin inay hadda nagala heshiiyaan waqtiga ay soo noqon doonaan sidaad maqasheenna waxay bixiyeenba waxay dhowaan bixiyeen oo ay bangiga soomaaliya kusoo shubeen lacagtii kirada ahayd oo lagu lahaa ilaa iyo muddadii ay maqnaayeen taas waxay ku tusaysaa inay dib usoo noqon doonaan insha allah mudane guddoomiye mudanayaali marwooyin faa'iidooyinka aan isleenahay waa laga heli doonaa howlgallada ama sharciga shidaalka markuu hirgalo waa kow kobcidda dhaqaalaha dalka kaasoo suuragal ka dhigi doona dib u soo celinta iyo casriyeynta kaabayaasha dhaqaalaha laba abuuritaan fursado shaqo oo ay helayaan dhallinyarada soomaaliyeed helitaan lacago qalaad oo adag foreign currency tababaro joogto ah oo aqoontooda kor loogu qaadayo dhallinyarada fursado waaweyn oo ay ganacsatada soomaaliyeed heli doonaan una fidin doona adeegyo kala duwan shirkadaha caalamiga markay yimaadaan waxay u baahan doonaan adeegyo waxay u baahan doonaan ilaalo waxay u baahan doonaan raashiin waxay u baahan doonaan logistica oo dhan waxay u baahan wax kasta u baahdaan waxaa sii doona insha allah ganacsatada soomaaliyeed waxaa kaloo faa'iidooyinka waaweyn ka mid ah in la abuuri doono shirkadda hadda aan idiin soo sheegay oo shirkadda batroolka qaranka soomaaliyeed oo noqon doonta shirkad ay soomaali leedahay aakhirkana la wareegi doonto howlgallada batroolka ee soomaaliya mustaqbalka had ilaah yidhaah waxaan meesha ka saarnayn in haddii howlgalladan ay bilowdaan si fiican u bilowdaan in amnigana uu waxweyn ka qabsoomi doono insha allah intaas waxay ahayd faa'iidooyinkan asleenahay waa laga heli doonaa waxaa jira caqabado hortaagan imaan kara caqabadii lafteeda inaan tilmaano way fiican tahay amni darrada guud waddan ka jirta caqabaday ku yihiin howlgallada shidaalka ee soomaaliya aqoonta iyo xirfadda sektorkan oo xadidan dareemi kartaan burburkii soomaaliya ku dhacay dadkii aqoon-yahanada soomaaliyeed ama qaarkood waa duqoobeen badankood waddanka way ka qaxeen marka sektorkan inta xirfadley ee ka shaqaysahay waa xadidan tahay waxaan rajaynaynaa insha allah markii soomaalida hadda dibadda nooga maqan qaarkii soo bartay cilmigan inay dib usoo noqon doonaan laakiin sektorkan wuu xadidan yahay hadda inta aan hayno intaan ka warhayno waxaa kaloo caqabad nagu ah kaabayaashii dhaqaalaha sida wadooyinkii garoomadii dekedihii waa ogtihiin howlgal shidaal wuxuu u baahan yahay kaaba dhaqaalo uu ku shaqeeyo wadooyinkii la mari lahaa dekedihii lasoo degi lahaa aagagii la samaysan lahaa dhammaantood dhibaato weynaa ka jirta la-aanta tashiilaadka spare partska haddii waddankan shirkad ay soo degto qalab yar dhibaato ka gaarto waxaa dhici karto in aaga kale loo aado oo ama kenya ama meelo carabta iyo laga doonto marka spare parts issue waa la dareemayaa waxaa kaloo muhiim ah ku qancinta shirkadaha shidaalka inay soomaaliya maalgashtaan waxaa laga yaabaa dadka soomaaliyeed badankooda inay isleeyihiin shidaalaha soomaaliya ka buuxa waana la dhacaya laakiin shirkadihii laftooda u baahan in lagu qanciyo maanta duruufta aan ku jirna darteed haddii aag ay shirkad ka damcda soomaaliya islamarkaana waddan dariskeenna oo ayada lafteeda ay ablay garayso labada markay isku fiiriso waxaa dhici karta inay meesha kale ay doorbidayso amniga dartiis marka in lagu qanciyo shirkadihii caalamiga ahaa inay soo maalgashtaan soomaaliya lafteeda waa issue aniga lafteeda caqabad nagu ah waana waxaan ku haynaa dadaal badan qaar badan waa ku qancin waxaa kaloo caqabadaha taagan ka mid ah wacyigelin la-aanta bulshada soomaaliyeed ku saabsan howlgalkan shidaalka ay bilaaban doona waxaa laga yaabaa qofka soomaaliga marka uu maqlo shidaala bilaabanaya inuu beriba aaminsan yahay in waddanka xoolaa
dadkii way taajir wada noqon doonaan laakiin sidaas ma aha mudday qaadan doontaa waxaa laga yaabaa in 10 sano iyo ka yar 5 sano ilaa 10 sano gudahood haddii maanta aan heshiis gaarno in ay nagu qaadan doonto muddo intaas leeg marka degdeg laga yaabaa dadka qaarkood inay ku fikiraan intaasoo caqabadood waxaan isleenahay waa laga gudbi karaa sida ugu fudud laga gudbi karaa haddii aan dhammaanteen sida hal si u fakerno insha allah kadib wasaaradda batroolka iyo macdanta Soomaaliya si ay u samayso in ay ku soo jeediso maalgashiyaasha shirkadaha caalamiga ee Soomaaliya waxay samaysay bandhigyo ay isugu yeerayso shirkadaha caalamiga inay arkaan daatada Soomaaliya laga aruuriyay inay tahay daato muhiim u ah ayaga inay maalgashtaan maadaama Soomaaliya uu yahay wadan frontier country waxaa loo yaqaanaa wadan aan weli howl ka bilaabanin anaga hadda wadamada dariskeena oo dhan Kenya Ethiopia Uganda Tanzania dhamaantood howlgalo shidaal uu ka bilowday oo shirkadaha ka shaqeeya anaga laakiin waxaan nahay frontier country oo ah u baahan in shirkadii imaanaysa lafteeda inay dhiirana ku timaado marka in lagu qanciyo u baahan tahay waxaan soo bandhignay macluumaadkii aan ka haynay shidaalka Soomaaliya shiraan ku qabanay mar bishii February London oo lagu soo bandhigay macluumaadka laga hayay shidaalka Soomaaliya danta laga lahaana waxay ahayd in shirkadaha caalamiga lagu soo jeediyo maalgashiga khayraadka Soomaaliya kuwaasoo muuqaal xun ka haysan jiray Soomaaliya lana tuso in wacyigii hore isbedelay Soomaaliya ay hadda diyaar u tahay maalgashi waxaa kaloo danta laga leeyahay waxa inay ka soo macluumaadka aan hayno lafteeda waxaa ku baxay kharash shirkadihii ay ku baareen haddii aan laga iibsanina wax macno ay leedahay male shirkadiina way khasaaray Soomaaliya wax faa'iido ay ka helaysa male marka aan bandhig sameynaba waxaa ka soo bixaya in ay shirkadihii iibsadaan macluumaadkeennii revenue ka soo xaroonay oo dawladda uga soo xaroonay iyo ugu dambeyntii in daahfurnaan lagu gaaro heshiisyada caalamiga markii aan soo bandhigno oo shirkadihii ay u tartamaan waxaa ka soo baxaya meeshaas daahfurnaan oo dadkii Soomaaliyeed ay ku qanci karaan shirkadahana ay ku qanci karaan habka loo qaybinayo balogyada Soomaaliya waxaan idin xasuusinayaa dhammaanteen in maanta adduunka uu u socdo wax loo yaqaan alternative energy ama energy kale oo aan ahayn shidaalka adduunku wuu bilaabay qaarkood waxay go'aansadeen 2040ka 2050ka in wadamada qaarkood aan laga isticmaali doonin gawaari ku socota shidaal annagana waxaan haysanaa sida aan macluumaadka aan gacanta ku hayno shidaal aad u badan oo ummadda Soomaaliyeed ay ka gaajoon tahay marka mas'uuliyaddaas naga saaran dhammaanteen inaan jiilasheena dambe uga adeegno khayraadka ilaahayna siiyey ayaan waxaan aad idinkugu dhiirigelinayaa annagoo ilaalinayna sharciga horteena yaalla in aan ku dhaqsanno inaan adduunka dariskeenna ama dowladaha dariskeenna aan la mid noqonno isla markaasna aan gali karno heshiisyo shidaal insha Allah tacaala mudana gudoomiye mudanayaal ugu dambeyntii waxaan si xushmad leh idinkaga codsanayaa inaad sharcigan hortiina yaalla waajibkiina ka gudataan wixii tala ah ku dartaan sida ugu dhaqsiyaha badan aad noogu ansixisaan wuxuu albaabada noogu furi doonaa inaan howlgallada heshiisi inaan galno insha Allah tacaala wasaaradda batroolka iyo macdanta waxay diyaar u tahay mar kasta inay talooyinkiina ku shaqayso wax alla wixii idinka aad noo keentaanna aan diyaar u nahay insha Allah tacaala sharcigan hortiina yaala saan hortiina hadaa idinkugu sheegay wuxuu saldhig u yahay sharcigii dib u eegis lagu sameeyey 2008 isla markaasna sal looga dhigay heshiiskii ay gaareen dowlad goboleedyada iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya June 5 2018